kusoo noqon doonaa kulay kusoo dhaweynaya taliyaha saldhiga kulay marka hore ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahadle ilaahay baan mahadnaqaynaa oo inoo suurtageliyay inaan wada caafimaad qabnaa oo nabad qabnaa sida wada ogsoonahay dhul badan baan maanta oo dhulka Soomaalidu ay ka yihiin ayaana si degdeg ah loogu dhiirin karin dad badan inay meel isku yimaadaan taasna waa wax ilaahay na siiyay ilaahayna aan ka rajaynayno inuu noo siyaadiyo marka labaad waxaan u mahadnaqayaa hay'adda soo diyaarisay training-kan ARC ama African Relief Community maamulkeeda shaqaaladeeda waxaan kaloo u mahadnaqayaa kasoo qaybgalayaasha kasoo qaybgalay barnaamijkan training-ka ama tababarka sidoo kale boardka tayaynta dugsiyada hoose dhexe ee Somaliland ama gaarka waliba kuwa gaarka loo leeyahay dugsiyada gaarka loo leeyahay macallimiinta ka socodna aad baan u baryanayaa waxaan kaloo leenahay macallimiinta ka timiday intaas soo dhaweyn iyo mahadnaq markaan kaga tago kullay xilligan fasaxa lagu jiro sida uu sheegay Cabdiqaadir inta badan way badan yihiin trainadu tababaro badan baa xilligan dhaco oo wax caadi oo dadku ay wada yaqaanaan oo indhaha dadka aan ku cusbayn weeyaan shalay training baa la furay maanta kan baynu furaynaa isla maanta ku kale ayaa magaalada lafteeda maamulayaasha dugsiyada public ah ayaa ka furmaya gobolka Awdal marka waa mid ka mid ah kullay trainada maanta ama bilahan fasaxa ku jirno ka furmaya kullay saan soo sheegnay way badan yihiin trainadu ama tababarada la siiyo macallimiintu ama dugsiyo dhexe ka shaqeeyaan ama dugsiyo hoose ka shaqeeyaan ama secondaryada ka shaqeeyaan ama wasa dugsiyada gaarka loo leeyahay mid ka doonana ka shaqeeyaan inta badan waxaad aragtaa guud ahaan gobolkeena ama waddanka Soomaaliland oo dhan markaad isku darto trainino fara badan baa ka socda laakiin haddana waxaa inta badan waxaa dhacda training-ka macallimiinta la tayeeyo macallimiinta la tababaro macallimiinta waqti lagu bixiyo inta badan marka kormeer la sameeyo ee dugsiyada la tago waxa la arkaa inaynan ahayn ama aynan training-kii ama tababarkii soo qaatay inay ku fulin wali dugsiyada looda bari dhawitaan waxaan sameynay kormeer training baa kala hore dhacay tababarkaasi bal waxaan soo fiirinaynaa gobolka sidii u dhaqan galay ama u hirgalay marka dugsi kasta markaad tagto mid mooyaane waxaad arkaysaa wixii loo soo dhigay ama wixii loo soo faa'iideeyay oo ahayd in ardayda iyaguna ay u gudbiyaan ama ay ku shaqeeyaan xirfadooda ay ku shaqeeyaan inta badan dadku ma fuliyaan macallinka dhigaya dugsiga inta yadiisa sare loo qaado oo aqoontiisa markaa la kordhiyay waxay keenaysaa ardaygii uu wax u dhigayay in isagana tayadiisii iyo aqoontiisa sare u kacdo waxaa la yidhaahaa macallinku waa sida awrka markaa soo daaqaya caawo dhan caliyacsinaya wuxuu soo daaqa jilcanaya markuu dhammeeyana joojinaya macallinkuna intuu hayo markuu dhammeeyo haddii loo sii wadi waayo isaguna wuxuu noqonayaa markaa sida awrku markaa u joojiyay raamsi ayuu joojinayaa tayadii iyo aqoontii ardayga markaa u dhisayay macallin markaa aqoon leh akhlaaq leh unbaa soo saari karaa arday aqoon leh markaa akhlaaq leh macallimiintana waa isaga yimiday gobolada Somaliland oo dhan ka socda maxaan ku dhahaa Sanaag ka socda Togdheer Maroodijeex iyo Awdal isugu jira maanta waxaan rajaynaynaa afarta maalmood barnaamijka u socdo in ay ka faa'iideystaan wax u faa'iideyn kara markaa ilmaha wax u dhigayaan aad baan markaa ugu faraxsanahay anigoo markaa mas'uulka hay'adda higelisay hawshan in intaasoo macallin la isbaro haddii xataa wax kale loo faa'iideyn waayo ay markaa iska bartaan bulshada iska bartaan waayo waxay ku wada jiraan dhufays keliya ay ku wada jiraan kullay hadal waan haray un looma hadlo saaxiibadayga horeeyaa dhameeyey intiisa kelmadiisa igaga habboon inaan idhaa yaa halkan isku taagay kullay macallimiintu nidaamka waa warshadii aqoonta wey warshadu markaa haddii ay xumaatana dee dadkii ay soo saar waxay soo saartay u xumaan hadday hagaagana u hagaag horta dee sidii dhan walba waa laga burburay xag waxbarasho iyo nidaam kasta
waxaa laga sheegay imka macallimiinta halkan fadhida inay wada secondary yihiin waxay iskuulka soo wada baxeen muddooyinka dhowray sagaashanadii waxaad arkaysay macallin nin kule macallin baan ahay oo waxa la garanayaan jir lagu soo qaramiyo reer ahaan saddex ciidan kaba loo soo qoro imka waxaad moodaa in laga baxay iskuullada kulley inaan class main ahay baa halkaa fadhiyo haddii halkaa fadhiya class main baa mahay 1993 ya عمودي يقولنا عمودي كان الله كيف كتبوا على جبح أنتي سكول الآب بالرأس رجع سكول دبلوت كان هيبقى معلمين كارت ما دام ده كي هو صد حالي ننسى قدر كم حيصير كل جايبه واحد من تايران قاعد في عنده ووحي مركز قرمي وماشي جبح أما يسقي بقى تدار كرسلوا عبانتي كرها تسوي لا يهدي markan iyo wixii la mid ah oo kor u qaadayo qofka awoodiisa ee wax gudbinaaneed iyo xirfadiisa adduunka qiimaha ay leedahay darteed waxaa lagu gala lacag aad u badan waxaa dhici lahayd maanta tababar ku saabsan shaqadaada qolkii lagu dhaado 1 malyan inaad ku gashid yani adigu aad qariibsan لأنه قفل ديب لو سمينيا marka muxuu ku gaarsiinayaa ugu dambeynta hataa annaga hay-adaad iyaa kafaalo qaadayo oo wixii oo ahay isdhuldhigayo aad bay umahadsan yihiin maalan dhibika waxaad ka fikirtaa iskuul baad joogtaa bal ka waran haddii lagu gaarsiiyo macallinka adiga dhigaaga halkii uu u baahnaa ardayga inuu ka dhaadhiciyo waxaa inuu ka dhaadhiciyo uu rabo hadduu u baahnaa macallinkaasi 40 daqiiqo maalan inaad adiga lagu soo gaarsiiyo heer aad kaga dhaadhicin kartid 10 daqiiqo 40 daqiiqo macallinkaa u baahan yahay aan tababarayn adiga waxaa lagu soo gaarsiinayaa wixii isagu u baahnaa 40 daqiiqo inaad 10 daqiiqo kaga dhaadhiciso bal ka waran haddii lagu soo gaarsiiyo fasalka adigoo aad gashid ama kalaaska adigoo aad gashid inay ardaydu u jeclaadaan ama dhalinyartu u jeclaadaan sida meelaha dhalinyartu isugu yimaadiina xataa waalidada ay uga baxsadaan ay u jecel yihiin hadday u jeclaadaan casharkaaga iyo kalaaskaaga hadda iminka waalidada iyo iskuulladu intay ka baxsadaan ciyaal ayay meelaha ay ku kulmaan dhalinyartu ay ku ciyaaraan ayay tagaan soo maa ay diraasada ka caymadaan ama casharkii ka ay ka baxsadaan adiga ka waran hadduu kaaga noqdo casharkii loo soo baxsanay hadduu noqdo halkaa baa lagu soo gaarsiinayaa nacam waxaa lagu soo gaarsiinayaa mar haddaad ka shaqaysid meedaankan waxbarashada in magacaaga la wada yaqaano oo haddii maalin maalmaha kamida iskuul aad ka tagtid lagu soo kala badiyo lagu dhaahda iskuulkayga usoo shaqata iyada oo kuwa badan oo saaxiibada ama walaalaha ay warna aqbala leeyihiin ay gudbinayaan waraaqahooga waxweeyaan saad ogtihiin macallin marka laga hadlayo waxaan malaynayaa qiimaha ama halka bulshadeena uu kaga yaalaayay shay nin walba uu ka ordo ay tahay weliba meeshan oo awdal la yidhaahdo gobolka la yidhaahdo dhulkii Soomaaliya la oran jiray waagiisii hore jamhuuriyaddii Soomaaliya la isku oran jiray aniga gobollo badan oo Soomaaliya ayaan maray meesha lagu xantay ee ugu macallin fiican ama ugu macallimiinta ugu badan ee Soomaaliya wadankii la oran jiray waxay ka dhigi jireen ayay ka mid ahayd imikana fadliga ay ku leedahay jaamacadda halkan ku taalo oo aan oran karo waxay ahayd hormuudkii jaamacadaha Somaliland ku yaalan oo camuuda qaybta tababarka macallimiinta ay ku leedahay raadka ayuu ka jiraa meelo badan oo soo arkay oo aan tegay laakiin waxaa isweydiin leh macallinka aan rabnaay inaan soo saarno
نوعيه يهمك ومعلم نوعيه معلم ماددي انتو قاضي حفتي isaguna maskaxda ardayga inuu ku shubo u baahan miya mise waa macallin loo dhigay oo gool mucayan inuu gaadho oo xaqiijiyo u baahan wixii loo dhigay objectivekii loo dhigay uu sameynayay iyo taqyiirka uu rabo inuu sameeyo guul inuu ka gaadho rabo miya kaa dambe weyaan ka aan u jeednaay maanta